أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب علمنا بما جهلنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الأعزاء، عشر كينو وحكو سابسن ياهي كتابك رياض الصالحين كأها وحينو كهد ليني قفك مسلم كإه الدين إسلام كمركة وعبادي سنة يامو كل رقميو إنانو إسكو سيئات كينين دمان خير أو دمان ساعد كليا إسكو مريانا إنانو قفك كري كرين إن أن قرشي سنو xaaladaha iyo wakhtiga iyo duruufta inaynu ku beegno sida musaafirkuba wakhtiyada qaarkoodna uu u nasto wakhtiyada qaarkoodna uu uga faa'iidaysto duruufta. marka waxaynu ka hadlaynay ha isku adkaynina diinta. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم waxay tidhi dakhala النبي صلى الله عليه وسلم nebigaa soo galay almasjida masaajidka ayuu soo galay faidaa xablun wuxuu ku arkay masaajidka xadhig soo laalaada mamduudun oo soo laalaada bayna saariyatayni laba tiir dhexdood xadhig ka soo laalaada mamduud soo laalaada ayuu arkay bayna saariyatayn laba tiir oo masaajidka ku tiirsa yacni tiirarkii masaajidka dhexdooda xadhig soo laalaadoo arkay. xabliguna waa xadhigga. faqaala wuxuu yidhi maa hada alxablu xadhiggani waa maxay? qaaluu waxay yidhahdeen haadaa xablun lizaynaba gabadha zaynab laydhaabaa xadhiggan xidhatay faidaa fatarat markay daasho tacallaqat bihi ayay cuskataa. faqaala nabiy sala allahu caleyh wasalam nebigaa deedna yidhi xulluuhu fura liyusalli ha tukado ruuxiin axadukum midkiin nashaatahu inta uu firfircoon yahay yani cibaadadu u dhadhamayso. faidaa fatara markuu daalana falyarqud ha iska seexdo. can caaishata radi allahu tacala canha ana rasul lah sal ly slm qaala wuxuu yihi idaa nacasa hadduu lulmoodo axadukum midkiin haddii uu lulmoodo wahuwa yusalli salaadna wuu ku jiraa waanu ku dhex lulmooday waana salaadihii sunnada ahayd ayuu ku dhex lulmooday salaatuleylka maalan falyarqud ha iska seexdo xataa yadhaba canhu nnawmu ilaa ay ka tegayso hurdadu ee uu hurdada uu maxaanku dhahdaa ay ka faaruqayso. faina axadakum midkiin idaa sallaa hadduu tukado wahuwa naacisun isagoo lulmaysan hadduu tukado laa yadrii ma kala garan doono lacalahu waxaa laga yaabaa yadhabu inuu ku dhaqaaqo yastakfiru inuu istikfaar dalba is yidhaahdo oo fayasubu uu deedna caayo nafsahu naftiisa oo inta aad markaad luloomayso inuu hadalku iska kaa dhaafo adigoo ducaysa isleh inaad isba habaarto ayaa dhici karta ama aad iscaydo. mutafaqu calayhi. wacan abi cabdillaahi jaabir bna samurata radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa usallii mid tukada maca nabiy sala allahu calayhi wasalam nebiga maciise ayaan tukan jiray asalawaati salaadaha ayaa nebiga la tukan jiray fakaanat salaatuhu qasdan salaadiisu way dhexdhexaad bay ahayd wa khudbatuhu qasdan khudbadiisuna dhexdhexaad bay ahayd. qasdan waxaa looga jeedaa bayna atuuli waalqasri bayna atuuli waalqisari salaadiisu mana dheerayn mana gaabnayn khudbadiisu mana dheerayn mana gaabnayn. wacan abi juxayfata wahab binu cabdillaahi radia allahu tacaala canhu qaala aakhaa nabiy sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu walaaleeyey markii madiine uu yimi bayna salmaana wa abi dardaa iyo salmaan buu walaaleeyey. fazaara salmaanu salmaan baa soo booqday abadardaa ninkii la odhan jiray saxaabiga aha fara'aa wuxuu arkay umma dardaa'i gabadhii uu qabay abudardaa oo magaceeda la yidhaha ummu dardaa mutabadilatan iyadoo aada iyo aada yani waxoogaa u basaastay oo aan indhuhu waxoogaa yaro dulaysan buu arkay. faqaala wuxuu yihi maa sha'nuki gabadh yahay si ayaad u madowdahayoo uu kuu fuushay waxoogaa maxaanku idhaahdaa muruge waa ku sidee sibaad u yaro bahdalan tahay. qaalat waxay tidhi akhuuka abudarda walaalkan oo ilaahay nabigu idin walaaleeyay abudarda laysa lahu xaajatun fi dunya ninkani adduunyada danteediiba wuu ka hadhay adduunyaba dan kama le. fajaa abudarda
وحويم فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فجاء وايم أبو الدرداء بايم فصنع له طعاما أبو الدرداء قرقي بويمي dabadeedna saaxiibkii walaalkiisa ahaa salmaan ayuu cunto u soo diyaariyey faqaala lahu abudardaa baa ku yidhi walaalkii kul fa innii saa'imun wuxuu yidhi cun anigu waan soomanay haddaan abudardaa ahaye salmaanow cuntadan aan kuu soo diyaariya walaalkayow cun faqaala wuxuu yidhi marka salmaan maa ana biaakilin ma cunayo xataa ta'kula ilaa aad adigu ila cunto gurigaagii baan joogaa soomkaad sooman tahayna waa sunne adaan marti kuu ahay cuntadanaad isoo hordhigtay ma cunayo haddaanad ila cunin fa akala wuu cunay falamaa kaana markay gaadhay alleylu habeenkii dahaba abudardaa wuxuu ku dhaqaaqay yaquumu inuu istaago salaatuleylka faqaala lahu markaasuu salmaan ku yidhi nam iska seexo fanaama wuu seexday uma dahaba yaquumu haddana saacad ka bacdi buu damcay inuu kaco waqti faqaala lahu wuxuu ku yidhi nam weli ma gaadhina seexo falamaa kaana min aakhiri leyl habeenka qeybtii dambe markay tahay qaala salmaan baa wuxuu yidhi qumil aana sida loo kala fiqi badanya bal fiiri hadday haddaba inoo gaadha waa saddexdii habeennimo meelaha hadday inoo gaadhayna kici fasallayaa jamiican si wada jira bay u tukadeen faqaala lahu salmaan baa walaalkii abudardaa ku yidhi ina lirabbika calayka xaqan ilaahay wuxuu kugu leeya xaq wa ina linafsika calayka xaqan naftan ilaahay ku ammaano geliyeyna xaq bay kugu leedahay waliahlika calayka xaqan ehelkiiyo xaaskuna xaq buu kugu leeyahay fa acti sii kula dii xaqin xaqahu ruux shay walba xaquu kugu leeyahay mari faata nabiya sala allahu calayh wasalam nebiguu deedna u yimid salmaan fadakara dalika lahu ama abudar baa nabiga u yimi faqaala lahu nabiy sal alla alay sadaqa salmaan abudardaa ayaa u yimi nebiga deedna wuxuu uga waramay warkii uu salmaan ay ku wada hadleen markaasuu yidhi sadaqa salmaanu arinkaas nebigu uga markhaati kaco wuxuu yidhi warkaa uu salmaan kuu sheegay run buu ku sheegay axad waliba shay waliba xaqiisa inaad marisaa lagaa rabaa وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن عاص قال وحيد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحا النبي قال الله شيء أني أقول إنان إليه وعبد الله بن عمرو بن عاص أيا ور يأرن السمية بأن النبي قال لقارسي أرن كاسوءها والله لا أصومن النهار عبد الله بن عمرو بن عاص بوحيد والله بان كل دارته لا أصومن النهار ما لنتو إنتي سوتشي دو دوان صومنان ولا أقومن الليلة habeen oo dhanna waan taagnaan maa cishtu intay naftu igu qoolantee noolahay maalinna afuri maayo habeenna dhinaca dhulka dhigi maayo faqaala rasul lah sal lla alay wasalam nebigaa deeta ku yidhi anta aladii taquulu daalika cabdillaahi ninka sidaa yidhi ma adiga faqultu lahu deedna waxaan ku yidhi qad qultuhu biabii anta wa ummii yaa rasuula allahi xaqiiqe waan idhi waxaa lagu soo gaarsiiye anaa idhi biabii anta wa ummii aabbahay iyo hooyaday allaha kugu furto oo wixii adiga kugu dhaci lahaa ee dhib ahaa adiga iyaga allaha ku riday bimacnaa waxa aabbahay iyo hooyaday adigaa iiga mudan yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi fa innaka adigu cabdullaahi laa tastatiicu daalika arinka aad ku nadartay ma wadi karaysid fa sum soom waftur waktina soon waktina iska afur wanam ma xillina seexo waqum xillina iska kac wasum min ashahri 3 ayaamin bishii walba 3 maalmood ka laasim soonkooda fa ina alxasanata khayr kasta bicashri amhaaliha 10 jibaar bay kuu noqon marka waxay ka dhigantahay adoo bishii oo dhan soomay haddaad bishii 3 maalmood ka soonto sidii nin sanadka oo dhan 100 soom baad noqonaysa fa ina alxasanata bicashri amhaaliha bal halkuu ka tusaaleeyay macalimka rasuulkeenu maalintiiba 10 baa lagaaga dhigi wadaalika mithlu siyaami dahr waxay taasi u dhigantaa sanadkii oo dhan qultu waxaan ku yidhi anoo cabdullaahiya fa inii utiiqu afdala min daalika waxaan kari karaa intaa inka badan 3 maalmood inka badan waan kari karaa qaala markaasuu nebigu ku yidhi fasum yowman waftur yowmayni haddaba waa yahaye maalinna soom 2 maalmoodna naso oo iska afur qultu waxaan ku yidhi fa inii utiiqu afdala min daalika nebi allow intaa inka badan baan awoodi karaa
قال وحمرك النبي كوري فصم يوما وافطر يوما هذا ووايا هي مالنا صون مالنا نصون فذلك صيام داود سيدا أن كفريا وحي رعسنتها صوم كنبي داود عليه الصلاة والسلام وهو أعدل الصيام صوم كأوغو ميسان كفي عنويان وفي رواية هو أفضل الصيام صوم للصوم كأوغو في عنويان أوغو فضل بدن إن مالنا صنت مالنا على فرته فقلت وحن كوري فإنه أطيق أفضل من ذلك سيدا سكا بدن أيان أودي كرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي قال كوري لا أفضل من ذلك دين تبكم يشروح انت كفر البدن صوم انت كفضل بدن إلهي بمسهرين ولا أن أكون وحولي عبد الله ولا أن أكون وقوممون ولا أن أكون إن أن أهان لها قبلت 3 أيام إن أن قاتل صدح ذي مالموت التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ما نتي إغواني أي أحب إلي أن كجعلان لها من أهلي ومالي أهل كيغي مال كيغي حتى حكمة هل كان كتشرتئك عبد الله هو قبوبي وعدنا الرسول كولا قالي نبي قلنا وكي إن بدن واني وركدا ورسدا من نقونيس ورعين كايل مر والبئس سيئت كيني مركو قبوبي أيا صوم كيدا إنه وحي النبي يسكو وقايان إنه فرنا مرة انت نفتك بحيث إنه مالنا صوم مالنا أفرو أي يوتاقنت إلا النبي أيو وعد كان الله حدو النبي أيو هدي الله يداكو علي إنه هل كا يوتاقنا تور ربع وانو الدالي وكري كري واي هدنا ما فوري كرو dee maalintii nebiga ay isla ogaayeen halkii nebigu kaga tegay inuu dib uga noqdo diidaya markaas wuxuu leeyahay maanta oon daalay oon gaboobay adduunyadayda iyo maalkayga iyo ehelkayga hadii la iga qaado oo dardaarankii nebiga iyo taladii nebiga aan yeeli lahaa taasaa maanta ila weynaan lahayd oo bishii aan 3 maalmood soomi lahaa oon sidii nebigu ii yeelay markii ugu horeysay aan aqbali lahaa oo fi riwaayo kale waxay oranaysaa ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل عبد الله نبي قرانه عليه الصلاة والسلام ألم أخبر ميان لا إيشيجن أنك أدق ميان لا يجور من أنك أدق عبد الله تصوم النهار إن أضمالن ودن سومي وتقوم الليل هبين كين أدستاجي قلت بلا يا رسول الله هابان إلي قال وحده فلا تفعل أركتشوج صم وأفطر ورمرنا صون مرنا إسكافر ونم وقم مرنا سيح مرنا إسككع فإن لجسدك عليك حقا ورشركا حق بك قول ليه وإن لعينيك عليك حقا إنها حق بك قول ليهين وإن لزوجك عليك حق زوجك هذا حق بك قول ليه وإن لزوارك ضدك كصوب وقنيانا عليك حقا حق بك قول ليهين وإن بحسبك وحاك قفلا أن تصوم وإن بحسبك وحاك قفلا أن تصوم إن تصومت في كل شهر 3 أيام بالولبا صدح مع الموت فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها حسنة كستا طمان بالغا قدقي فإن ذلك صيام دهر وحيقول أنت بشي أردن سنتك إن تصومت وكله فشددت وان اسكو أدكيه فشدد علي أن والله يقول أدكي قلت وحان يا رسول الله إني أجد قوة نبي الله وحان دريمي يا إن حوق انتا كبضن ليها قال وحد صوم صيام نبي الله داود هذا وواي هاي صوم كي نبي داود وكلا صوم ولا تزيد عليه سيدا إن كبضن إن الله ما الموت صومت مالنا أفرطات دي كبضن أنكرا أما صدح ما الموت صومت مالنا أفرط تعال لقاي لماي قلت وحان كله وما كان صيام داود مركو نبي كل صوم كي نبي داود صوم أيام ويديون محوها صوم كي نبي داود قال وحر نصف الدهر سنة كلبركي بنغنيا فكان عبد الله يقول بعدما كبر عبد الله باوحو كوكو ممونشر مركي وينادي يا ليتني هو جيجي قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصتي فرصتي نبي يفري من قاطو وفي رواية كلا واحد ألم أخبر ورميان لا ورمن أنك أدق تصوم الدهر إن سنة كودن سوميسو ميان لا شيغين أيو نبي كوير أنك تصوم الدهر دهر كودن إن سوميسو ميان لا شيغين ساسو نبي ويدي قال وحوري نبي مركا فصوم صوم النبي الله داود وروحات صومتا صومك نبي الله داود صوم ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كله ليلة قرآن كان دمانتي إن هل هبين كو ختنتو
سان قو أنصتي ميان لأي شيء فقلت وحن كل بلا يا رسول الله واصدي تهي ولم أريد بذلك إلا الخير وحكى له أن وجدت شيء خير هيني مشرو قال وحمرك النبي كوري فصم صوم نبي الله داود ورنيه وصوم كنبي داود هذا بالصوم فإنه كان أعبد الناس خلق إلهي دتك وعبادة بدنابوها وأقرأ القرآن قرآنك في كل شهر واقرأ أقري القرآن في كل شهر بشي والبنا مر قرآنك ختن قلت وحن كل يا نبي الله نبي إلهي إني أطيق أفضل من ذلك سدا عديد تلمانتي سكوين وانكري كرا نبي إلهي halkaa maanta casharkeenu ha inoogu joogo halkaasaynu kasii wadi doona xadiidka wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi